maanta sidii caadiga ahayd halka waxa ku dhamaaday shirkii golaha wasiirada dawladda Soomaaliyeed oo looga hadlay ajadayaal badan oo dabcan sidii caadiga ahayd waxyaalaha dalka hadda ka taagan iyo horumarinta hawlaha dalka ee dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada ayaa looga hadlay qodobo kamid ah sidoo kale waxa lagu dhageystay warbixin ku saabsan safarkii ra'iisul wasaaraha iyo wafdi dawladeed ay ku tageen magaalada Washington DC looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha Soomaaliyeed iyo deyn cafiska oo runtii ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisii kula soo kulmeen hay'adaha dhaqaalaha adduunka ee IMF iyo World Bank kulankoodii spring meeting loo yaqaano ay ku kulmaan round table meetingka sidoo kale ra'iisul wasaaraha wafdigiisu waxay la kulmeen madax badan oo dalka Mareykanka dawladda Mareykanka kamid ah waxaanay kala soo noqdeen guul iyo in dalka Soomaaliya lagu amaanay dawladda Soomaaliya qaabka ay u horumarinayso dhaqaalaha iyo amniga iyo adeegga bulshada loo hayo guul fiican ayaa shirka laga soo gaaray sidoo kale waxa lagu dhageystay warbixinta xubinnimada UBU wasaaradda boosta oo hadda wixii ka dambeeyay dalka Soomaaliyeed uu yeelan doono nidaam boos oo adduunka ku xidhan ugu dambeyntii iyo ta ugu muhiimsan golaha wasiiradu maanta waxay ansixiyeen sharciga jaangoynta iyo tayadhowrka Soomaaliyeed oo ah sharci aad iyo aad u muhiima wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu muddo hor keentay golaha wasiirada laakiin maanta la ansixiyay sharcigaas oo wixii hadda ka dambeeya marka baarlamaanku ansixiyo madaxweynuhuna saxeexo oo wasaaradahan aan ku dhaqsan doono nidaamin doona waxyaalaha dalka Soomaaliyeed soo galaya iyo waxyaalaha ka baxaya tayadooda waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bushaareynayaa xantii badnayd ee jirtay ee ku saabsanaa in dalka Soomaaliya la keeno alaabooyin tayadoodu hooseyso ama dhacay in marka hay'adan maalmaha soo socda ay baarlamaanada marto madaxweynuhuna saxeexo ay dhamaan doonto wixii maanta ka dambeeya dalka Soomaaliya waxay golaha wasiiradu go'aamiyeen inay ku dhaqmaan East African Standard oo ah madaqadan aynu ku noolnahay standard ay ku dhaqanto sida Kenya iyo wadamada kale ee East Africa oo ah standard aad u fiican inta laakiin la xalaaleeyay oo waxa la wixii maadaama inuu dal iyo dad muslim nahay la xalaaleeyay marka wixii hadda ka dambeeya waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bushaareynayaa in ay quudan doonaan ama isticmaali doonaan alaabooyin tayadooda la hubo tayadhowrka Soomaaliyeed ma aha oo kaliya cuntada wax kasta oo bini'aadamku isticmaalayo oo cuntada leh oo biyaha leh oo alaabta dhismaha leh oo alaabta warshadaha ka soo baxaysa leh waa tayadooda la control doona oo tayo lagu kalsoon yahay oo la isku halayn karo laga dhigi doona waa mahadsantii